waxaan ku idhahaa nidaamka lagu shaqeeya carruurtayda aan ku idhahaa maaha nidaam saxa buuggan dheer ee maaragtay dastuurka arkaysaa waxba kama jiraan baa ka saxi waa 8 qodob 8 qodob baana laynagu dhaqaa dad badan oo kala dulmanin way jiraan meel kastoo af Soomaali laga hadlay 8 lagu dhaqaa waxaan noolaadu qabiilku haba sheegaysanaan soo qaadin cadaalad laangaab hayska jooga halkiisa haweenna daaro warkeeda haybtii tira leh ee halkaa degan unbaa talinaysa Soomaaliya runtii waa siduu odayga sheegay qabyaalad baahsan ayaa ka jirta dalka gobol walba oo Soomaali ah qabyaaladu way gaartay guri walba qabyaaladu way gaartay oo Soomaali ay ku nooshahay dal idibid meesha doonaha hataa waxaad arkaysaa dalalka reer Yurub ee Soomaalida ay degan yihiin ay ku nool yihiin halkaas masaajidada ay ka dhiseen hataa in qabiil ah lagu qaybsado in qabiil u qaato imaamka qabiil muadinka qabiil kale waxyaabo kale ay qaataan qabiilada kale marka Soomaalidu intooda koowaad waxay ka dhigteen qabyaaladu marka waxaan isleeyahay marka sidee Soomaalida qabyaalada looga saari karaa sideedas qodob sidee loo leexi karaa ku dhaqankooda Soomaalida marka waa arrin aad u muhiim ah